qaybo ka mid ah deegaanada jasiiradda Svalbard ee dalka Norway ayaa maanta oo Jimco ah laga daadguraynayaa dadkii deganaa, waxaana laga mamnuucay in loo safro deegaanada dadka laga daadguraynayo. Arrintan ayaa timid kadib markii ay ka dhaceen jasiiradahaas duufaano aad u xoogan oo uu barbar socdo baraf aad u badan, waxaana intaa dheer oo ay khubaradu saadaalinayaan in ay suurtagal tahay in deegaanadaasi uu ku soo dumo barafka xooga badan ee ku hareeraysan. Daadguraynta deegaanadan ayaa waxa ay ka bilaabatay deegaanka Longyearbyen ka oo ay go'aamiyeen maamulka deegaanka Svalbard iyo shirkadaha ka howlgala deegaankaas kadib markii ay khubarada ka digtay suurtagalnimada in uu barafka ku hareeraysan uu ku soo dumo. duufaanaha xooga badan ee ka jira Longyearbyen ayaa waxa ay sababeen oo ay carqaladeeyeen duulimaadyadii hawada, si taalamidana waxa ay hakad geliyeen isku socodka gaadiidka kala duwan ee deegaanada ka shaqeeyo, waxaana sii kordhaysa cabsidii laga qabo qaybo ka mid ah jasiiradahan in uu ku soo dumo barafka xooga badan ee ku hareeraysan. booliiska wadanka Finland ayaa gacanta ku soo dhigay 2 wiil oo dhalinyaro ah oo da'doodu ka yar tahay 15 jiro, kuwa oo qorsheynayay weerar ka dhan ah iskuul ku yaala magaalada Jomsa ee dalkaasi Finland. Sida laga soo xigtay booliiska, da'yartan ayaa qorsheynayay inay iskuulkaasi ku dhex dilaan 3 qofood iyaga oo adeegsanaya mindiyo iyo waxyaabo kale oo wax dila. booliiska ayaa sheegay inay ka war heleen dhacdadan inta aysan dhicin, sidaana ay uga hortageen oo ay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaradan falkaasi qorsheynayay. Waxayna intaa ku dareen in ay qirteen fariimo falkan ku saabsan oo ay isku weydaarsadeen barta lagu wadaago sheekooyinka ee Discord. Antti Manina oo ah maamulaha iskuulkan ay falkani ka dhici rabtay oo ay dhigtaan ku dhawaad 450 arday, ayaa sheegay in iskuulka uu sii furnaan doono oo uu si caadi ah u shaqeynayo, ardayduna ay imaanayaan inkastoo uu socdo baaritaano ay booliiska ka wadaan gudaha iskuulkaasi. magaalada Stavanger ee dalka Norway ayaa subaxnimadii saaka oo Jimco ahayd waxaa ka dhacay faldambiyad loo adeegsaday torreyka oo dhaawac fudud loogu geystay nin aan ilaa hadda magaciisa la xusin. booliiska deegaanka koonfur galbeed dalka Norway ayaa helay warbixinta ku saabsan weerarka torreyda loo adeegsaday oo ka dhacay xaafadda Vollan ee magaalada Stavanger 9kii subaxnimo ee saaka oo Jimco ahayd. Steiner Knudsen oo ah taliyaha qaybta howlgalka booliiska ayaa sheegay in qofka dhaawacmay loo diray isbitaalka, isagoo intaa ku daray in dhaawaca soo gaaray uu yahay mid aad u fudud oo kaliya nabaro ay ka soo gaareen maqaarka kore. shilkan ayaa sida ay booliisku qeexeen waxa uu ka dhacay meel xiran, waxayna intaa ku dareen in aysan jirin khatar soo wajahday dadweynihii goobta ku sugnaa. ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay weerarkan loo adeegsaday torreyda. duufaanta xooga badan ee Romerike ee ka dhacaysa qaybo badan oo ka mid ah dalka Norway ayaa sababtay koronto la'aan baasan oo soo wajahday qaar ka mid ah deegaanada dalka Norway iyada oo lagu guda jiro xilligii qaboobaha oo uu barafku meel walba daadsan yahay. ku dhawaad 10,000 oo qoys ayaa saaka ku waabaristay koronto la'aan, waxayna ku sugan yihiin xaalad qabow iyo qarqaryo ah. Morten Ishulo oo ah maamulaha qaybta isgaarsiinta shirkadda Eleva ayaa sheegay in ilaa iyo 9,600 oo qoys ay maanta ku waabaristeen koronto la'aan, wuxuuna intaa ku daray in ay ku howlan yihiin sidii ay cilada jirta u sameyn lahaayeen, isagoo intaa raaciyay in geedo badan oo xambaarsanaa korontada ay duufaantu dhulka soo dhigtay, kuwaana ay xalintooda ku mashquulsan yihiin dadaal dheeriyana oo ay ku bixinayaan. intaa wuxuu ku sii daray in ay suurtagal ahayn in dhammaan ciladaha jira maanta lagu xaliyo, wuxuuna sheegay in qoysas badan ay koronto la'aan sii ahaa doonaan ilaa maalinta birita ah. halka ay wararka ugu doorkaroon maanta idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdullaahi Shiine.